السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa waa mar kale iyo barnaamijkeeni dhaxal reeb oo maanta ay nagala qayb qaadanayso walaasheen Nafisa Abtidoon dhaxal reeb wuxuu maxaan ku raahdaayay loogu talagalay barnaamijkan in wax badan laga ogaado shirkadda Ombasif faa'iidada ay u leedahay ummada Soomaaliyeedna aanu u soo bandhigno iyo waxyaabaha ay hayso marka maanta waxay nagala qayb qaadanaysaa walaasheen Nafisa Abtidoon Nafisa soo dhawo walaalo aad baan ku soo dhaweynayaa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh amina qorna walaal waa mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka dhaxal reeb oo rajeynaya dad badan oo walaalaheena Soomaaliyeed inuu gaaro bismillah insha Allah waa sidaynu ku hanweynahayba waa inay Soomaalidu si fiican u fahantaa barnaamijka iyo shirkadaba Nafisa maanta waxaan jecelahay inaynu ka hadalno sideen maalintii hore aynu ka soo hadalnay ecosystemka Ombasif uu iska leeyahay kadibna waxaad inoo sheegtay in furaha lagu kalo Ombasif uu yahay oo mail ay shirkadda Ombasif leedahay marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo waa maxay oo mail muxuu se kaga duwan yahay oo mailka Ombasif ay samaysay oo mailada kale sida Gmailka iyo Hotmailka waa mahadsantahay soo dhawo aad baad u mahadsantaa amina qorane horta oo mail sidaan hore u soo sheegnaba waa albaabka qura ah ee lagu soo gali karo Ombasif oo mailna shirkad walba ama company kastaba wuxuu leeyahay inuu wax islaamid isticmaalo ama wixiisa uu isticmaalo marka Ombasif waxay ku tala gashay inaysan cid kale u baahanin iyadu samaysato meesha albaabka qura ee laga soo gali karo hadda shirkadda Google u fiirsato waxay leedahay wax leeyahay Gmail oo haddaadan Gmail lahayn shirkadda Google ma geli karaysid wax kastoo ay leedahay YouTube haddaad u baahato waa inaad Google isticmaasho waa inaad Gmail isticmaashaa meel kastood u baahantahay waxaad u baahan tahay in aad albaabkaas koowaad horta aad ku soo gasho oo rabto inaad search samayso marka hore Gmail waa lagama maarmaan sidaasoo kale Ombasifna waxa ay create garaysay ama ay abuuratay mail oo ah email caadi ah oo sida ummadda sida kuwa caadiga ah la iskula xiriiro oo kala ah dheerina wata ajaa'ib ah muxuu kaga duwan yahay oo u gudbi doonaa laakiin koow horta marka aad rabto shirkaddan Ombasif inaad albaabkeeda soo booqato ay noqotiin free ku timaado ay noqotiin inaad wax ka iibsato koow waxaad u baahan tahay inaad mailkaas create garaysato oo aad samaysato si bilaasha albaabkeedana aad horta ku soo gasho marka hore haddaan u gudubno kelmadda ah muxuu kaga duwan yahay kuwa hadda jira emailada hadda jira wuxuu kaga duwan yahay siyaabo aad u fara badan oo runtii aan halkan kusoo koobi karin laakiin haddaan mid iyo laba soo qaato waxaa ka mid ah horta mail wuxuu ku shaqaynayaa waxa loo yaqaano garaadka macmilka ah ama waxa loo yaqaano artificial intelligence-ga ayuu wixiisa dhan ku shaqaynayaa oo macnaha featureskiisa wax kasta wuxuu ku shaqaynayaa AI wuxuu kale oo kaga duwan yahay emailada maanta aynu isticmaalno oo kaga fiican yahay isleeyahay walaalaha Soomaaliyeed way tahay maanta inay ka faa'iideystaan wuxuu leeyahay features ajaa'ib ah oo runtii aadan malaysan karaynin email in aad loo isticmaalo sidaan ognahay dadka Soomaaliyeed waxay jecel yihiin runtii hadalka ama qoraalka way neceb yihiin xataa kuweena jaamiciyaasha waxay jecel yihiin intay wax qori lahaayeen ama inay wax dhageystaan ama ay muuqaal si degdega u daawadaan haddan muuqaalkan inta yaran kusoo gudbinayno aan aaminay qorno oo aan dhowr page ka dhigno way ku adkaanaysaa qof inuu maaragtay adduunkan maanta casriga ee xawliga ku socda uu u fariisto akhriyo mail marka muxuu kuu samaynayaa mail waxaad samayn kartaa video mailing inaad ku samayso oo waxa weeyaan intaad sidaa click button yar siiso wax aliya waxaad rabtay baa dadkii inaad si yaro email macnaha oo video ahaan ah inaad hal mar click siiso daadho u duubto 3 daqiiqo intaad rabto dharrag aad qofkii horta ugu gudbiso si degdega koow wuu kaga duwan yahay maanta emailada aynu isticmaali jirnay oo old fashionka aan kasoo guurnay aniga adigu waan is ognahay waxaan isticmaalnaa mail malahan maxaa la serviceka kale oo uu leeyahay mail waxaa ka mid ah unlimited storage macnaha meel aad wax ku kaydsato oo aan limit iyo xad lahayn inuu leeyahay oo waxa weeyaan waad aragtay maantay aniga Gmail baan isticmaalaa oo wali still isticmaalaa oo qaybo kamid ah inta aan alaabteeda ka soo raranayo Gmailkaas wuxuu limitka iga buuxsama goorme cloud baan iibsaday
kaasaan ku kaydsadaa sawirada ilmaha haddaad rabto inaad maaragtay wax kaydsato waxaad ku qasban tahay in aad maaragtay wax kala iibsato extra Omail laakiin isagoo bilaasha oo 100% free ku ah ayaad unlimited meesha cloud lacag kale lagaaga cuni lahaa kan waa xad la'aan in aad ku kaydiso wax aliya waxaad rabto sawir video file wax aliya waxaad rabto wax ku kaydsan kartaa si bilaasha wuxuu kale oo Omail cajaa'ib ku sii yahay speech taxi wax leeyahay ama taxi to speech labadaba haddaad u bedesho hadal inaad cod ahaan macnaha qoraal lagu soo qoray ama email lagu soo qoray inaad cod ahaan u dhageysato inta bottom yar click siiso waxa li waxaad ii soo qordhay oo dhan aniga hawlahayga iska wata aan dhageysta emailkii iyo nuxurkiisa sidoo kaleeto in aan codka aad ii soo diday bottom yar taabto oo uu qoraal iiga dhigo oo qoraal ahaan intuu u bedelo aan hadhow yara meelaha maaragtay qaladku ka galo codka wuxuu ku siinayaa calaamad yar buu kugu highlight gareyn wuxuu ku leeyahay halkaa iyo halkaa ayaa maaragtay qalad ku jira sax saas falaarta u kor saaraysa uu kuu saxayaa daqiiqadiiba warkii oo nadiif ayaad qaadanaysaa waa cajaa'ib marka hadda codka aan rabo qof inaan email u qoro uma baahni inaan wax type garaaco bottom yar baan taabanayaa waan u duubayaa laakiin ilaa iyo hadda wuxuu support garaynayaa ama caawinayaa waa luqadda ingiriiska laakiin way soo socotaa luqadaha kalena si degdega in loo soo geliyo sida ogtiin Ombasif haddeer waxaa ku dhex bildi garaysan luqado aad u fara badan oo luqadeeda Soomaaliga ay ka mid tahay Carabigu ka mid yahay Ingiriis nooc luqado badan oo fara badan baa ku jira marka asagana just waxaa ka dhiman just integrationkii in lagula soo suubiyo laakiin luqadeena hooyo imagine inaan ta video caadi Soomaali waad ku duuban kartaa oo ku dirsan kartaa laakiin markaad tiraahdo codgan ku dhageysanayaa qoraal Ingiriis oo la ii soo qoray Soomaali baan ku dhageysanayaa way noo imaan doonaa laakiin hadda available ma aha waxyaalaha runtii kale uu haysto waxaa ka mid ah in aad ku deviceyo badan oo haddaba wuxuu noo ogol yahay saan ognahay wuxuu noo okay marka isku soo duub waxa weeyaan muhiimadda Omail cajaa'ibta uu leeyahay waxaa ka mid ah featureskiisa oo runtii aad iyo aad u cajiib ah oo waxa weeye aan la soo koobi karin qofkuna bilaash markuu inta ku yimaado gudaha soo galo asagu isticmaalo ayuu go'aan ka qaadan karaa biidnillaahi tacaala soo dhowaamin ما شاء الله runtii horta nafisay waa saad u tilmaantay aniga Gmail iyo maxaan ku dhahay Hotmail labadiiba way ka buuxsameen oo lacag dheeraad ku bixiyaa laakiin in Omail maxaan ku dhahday uu unlimited yahay una ka buuxsamaynin taas ayaa wax loo dhigaabanayna jirin ta kale inaad u jecelahay adiga arkay oo markii wadamadan joogno markasta waxa la inoo soo diraa warqadda iskuulada iyo meel walba inooga timaatiyo shaqadaba warqadihii adigoo wax kuu akhriyayaba helaya adigoon akhrisanba ayuu kuu akhriyaya hadda luqadaadii Soomaaliga ka dhigatidna uu Soomaaligii maxaan ku dhahay uu kugu bedelayaa oo featureska soo socda ah inaad luqadda Soomaaliga uu kaaga dhigo nafis aad baad mahadsan tahay nafis haddaba qofku isaga oon maxaan ku idhaahdayay aan wax productiya Ombasif ka iibsanin ma isticmaali karaya Omail oo khaliya oo maxaan ku dhahay keligii ma ka isticmaali karaa sida shirkadda Google oo kale aynu Gmail-ka uga isticmaalno keliya wuu ka isticmaali karaa aaminayo qofku uu isticmaali karaa kolba horta marka hore waxaa sharti ah qofku marka uu create garaysto already marka uu qofku uu helo linki oo loo soo diro linkiga ku dhufto waxa uu leeyahay samayso Omail si aad Ombasif ecosystem u soo gasho marka kaliya ma aha asaga inaad free ku isticmaali kadib serviceka Ombasif oo dhan ayaad free ku isticmaali kartaa haddii aad Omail haysato marka waad ku isticmaali kartaa si bilaasha waanad kaga faa'iideysan kartaa xitaa Ombasif waxyaalaheeda kale oo dhan inaad ku soo booqato kii free ah platformyada aynu dib u sheekayn doono dhan oo free ana waad isticmaali kartaa kuwooda lacagta xataa waad fiirfiirin kartaa waad tijaabin kartaa maaragtay labada asbuuc productyaashu way kala duwan yihiin oo midna wuxuu leeyahay week free ah mid wuxuu leeyahay 2 week oo free ah kuwaasna intaad subscribe garaysato maalmaha free-ga ah waad ku baran kartaa waad ku fiirin kartaa si aad go'aanka u qaadato laakiin kuma xirna Omail in aad Ombasif wax ka iibsato qasab ma ahan si free ah oo bilaash ah ayaad servicekaad ku isticmaali kartaa adigoo waliba ecosystemka ama deegaanka Ombasif inta soo gala kaga faa'iideysan kara siyaalo kala duwan marka واستعمال كرا قفك سفري بإذن الله
okay marka waxay ka dhigan tahay oo kale sida inuu isticmaalo Facebook oo kale in Facebook ba hadii aynu email marka hore ku soo gelin oo inuu emailkeena gelin ma isticmaali karno soo macnaheedu waxay ka dhigan tahay sidaas oo kale ayaan isagana inuu u gelino oo mail ay u samaysano ayaa waxaad fursad u helaysaa inaad productyada free-ga sida kuwa social media oo nidoo kale aad maxaan ku dhahay si free aad ku isticmaashid runtii waa arrin aad u wanaagsan aadna waan ugu faraxsanahay Nafisa maxaan ku yiraahdaa barnaamijku maanta inuu dheeraado mar rabo waxaan rabaa inuu koobnaado haddii Ilaahay yiraahdo kayd noo yaalana waa tahay inaan dib iskugu soo noqono oo productyada kale iyo waxyaabaha kale aan dib uga sheekaysanaan jecelahay marka maanta kelmadda aad kaga tegisid ummadda Soomaaliyeed maxay tahay waxay tahay mail walaal ku samaysa si bilaasha soo gal waxa aan ku sheegayno horta maalin walba ka wardoon waxa la yiri waxaad macnaha adigu indhaha ku soo arki kadho inuu qof kuu sheego runtii waxa kaaga fiican dad adigu soo gasho inaad tijaabiso oo test garayso oo fiiriso marka waxaan kugula talin lahaa free-gan platform-kan oo mail isticmaal tijaabi arag adiga de adigoo caadi platformadaadii kala haysta ama Gmail dad isticmaali jiray isticmaalaya kana bal fiiri isu compare garee oo adigu bal isku yara dir dhexdaada email isku fiiri adiga marka waxa ku soo baxaya midka ku fiican annagu waxaan kuugu sheegaynaa waa shay bilaasha lacagaaga ma rabno waxba kaaga ma doonayna laakiin waxaynu rabnaa casriga loo guuray inaysan dadkaygu ka harin ee iyaguna ay dhinacooda ka qabsadaan marka insha Allah aaminay waxaan aad banu salaamay walaalaha Soomaaliyeed intaas ku soo koobaya waa mahadsantahay adiga mudan walaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin